Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabteena meel walbo dunida ka joogtaan halkaa naga daawanaysan waa la socosho tube fadna hadday tahay markaa kuwa horaa soo booqatid janalkeena subscribe noo saar sidoo kale riix kambarka digniinta si aad ugu mid noqotid la socda mar walba xogyaasha aan usoo gudbino videowan waxaa idinku tusi doonaa mise idinkula socodsiin doonaa sida lagu ogaado waxyaabaha ugu dambeeya ee taleefankaaga laga isticmaalay ee adigoon ogeyn. Mararka qaar waxaa hubaala in markaan asxaabteena kaga tagin taleefoonaheenna ay ka isticmaalaan aabyo mise applicationo munaasab ahayn taasoo ay ku ogaanayaan xogyaasheena iyo ay ka aflagaadeynayaan dad aanan aqoon u lahayn, balse waatana dhibaatadaada waxa xalin lahay iyo sidaad ku ogaan lahayd maalin walba xogyaasha aad taleefankaaga ka isticmaashay. Yes guys, waxaan ugu fadhiisan waxaa waaye sida informationka loo ogaanayay. Waa maaha sheeko iska adag, waa sheeko iska basiid ah. Kaliya waxaad tagaysaa app uma baahno, app la research gareynayo mise app la soo install gareysanayo uma baahno. Kaliya waa aalad taleefanka ku dhex jirto balse adiga ayaan ogeyn. So waxaad tagaysaa kaliya app phone-kaaga meesha dadka ka wacdid mise dadka kala xiriirtid. So markaad tagtid wax zaid weynaa dheel gareysid maahan. kaliya waxaa qaraacaysaa xidig 4 gees xidig 4 gees. So intaan markaas ku ogaanay xidig 4 gees kadib waxaan qaraacaynaa 4 6 3 6 isla markii kuma celinayna xidig balse tookadan xidig ayaan dhahaynaa taas soo hormarinaynaa kadib xidigtan dhahaynaa taas soo hormarinaynaa kadibna xidigaan dhahaynaa inuu isgeynaa. marka saddexda xog taleefanka ugu muhiimsan waa saddexda xog oo ah all information, usage statistic iyo waliba wifi. phone information waxaa ku ogaani kartaa taleefankaaga inta qof wacday, inta qof oo soo wacday u dambeysay, inta qof oo kaarkaaga ka dirsatay, inta qof oo taleefankaaga laga wacay. waayo waxaa dhici kartaa adigoo ogeyn taleefankaaga in laga wacay qof misle laga cayo voice call stateska u dambeeyay qof aan wacay waxaa waaye iidle saad arkaysaan inay tus doonaa. So marka use station waxaa waaye marka kaliya waxaa waaye taleefankaaga waxaa jira app-yar aad isticmaalaysid. app-yaasha isticmaalkooda goormuu ahaay maybe laga yaabaa taleefankaaga qof inaad ugu tagtay app-yaaro qaar uu ka isticmaalay. app-yaashaasoo muhiim ku ahay sida xogyaashaada ku jiraan whatsapp-ka kaleete iyo waxyaabo kaleete oo ku qaas ah balse adina ay rabin inuu qofka ogaado. sideed ku ogaani kartaa waayo qof taleefanka u dhigay. haddaan taleefankayga hadda saacada waxaa la marayaa 8:38 arkaysaan. taleefankayga waxa ugu dambeeyay isticmaalitaan app last time usage time waxaa waaye youtube ayaan isticmaalay 7:33 waayo app ugu dambeeya aan isticmaalayo wuxuu ahaa youtube. sidoo kale TBS 2020 daraad ayaa romaan galay laakiinse waxay ahayd waxaan isticmaalay waqti isticmaal lii sheegayaa balse inta haddaan ku dhufto waxaa iisoo baxayso last time usage aan dhahaa xilliga ugu dambeeyay waxyaabahan isticmaalay phone-kana ka mid ah oo hadda aan ku jiro isla xilligan. So recorder waa waxaan iisoo record gareynayo. gallery waa isticmaal waayo gallery-gayga oo beemin sidoo kale kama u maqno 8 saac ayaan ku jiray. google sidoo kale feedmate 8 saac waxaan dhawaan 8 saac youtube 8 saac message-kana waa qof kala sheekeysanayo oo u buffering u dirayay 8 saac ayaan ku jiray. music-da xoogoo dhan waa kuwan xilliyada u dambeeyay aan isticmaalay. marka aan fiirino wifi information waa wifi saa ognahay VVIP. so waxaan tagnay wifi disable network goortay dhahday may inta id lahaa waayo wifi id-giisa geliysaan wifi id malihi balse wifi-gaas waa fiirinaysaa id-giisa. wifi network-ana waxaa waaye yacni wifi-ga aad isticmaalaysay inta qof kugu dambeysay
oo isticmaasho wifi-gaas aad ka ogaanaysaa wifi ID markaa gelisid dadka ugu dambeeyay qofka soo galay. Markaa waxyaabo badan ku sameyn kartaa sida blogging oo kaleeto waa blog gareyn kartaa si uu wifi-gaas mar dambe u isticmaalo qofkaas oo kaleeto telefoonka isticmaalaya waxaas uu sheegaa. wifi status-na waa kana wifi xilli ugu dambeysay aan telefoonka ku isticmaalo xilli ugu dambeysay telefoonka uu isticmaalo iyo waxyaabaha kaleeto xogaha kale ku sheegaa. Baby so both me,